رئيس الوزراء ku-xigeenka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ay wada qaateen taliska booliiska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka sida warbixin amuurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Axmed Yuusuf Suleymaan. kulankani ay wada yeesheen talisyada maamul goboleedyada dalka iyo taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka cadaaladda iyo xeeladaha guud ee qaranka waxaana looga hadlayay kulankani qaab dhismeedku u yeelan doono ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxaana halka ka hadlay xeeladaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahirka oo sheegay in ay wanaagsan tahay in la mideeyo ciidamada asluubta Soomaaliyeed. waxay noo tahay maanta runtii wax weyn in ciidankii asluubta oo midaysan maanta ay hor fadhiyaan waa wax badan aan ku taamaynay wax badan aan raadinaynay midnimadii Soomaaliyeed iyo wada jirkoodii iyo dawladoodii dhexe iyo toodii dawlad goboleedyadoodii oo wada jira oo wada tashanaya inaan aragno xafiis kasta ka aragno aad iyo aad ay muhiim ugu tahay. sidoo kale waxaa meesha ka hadlay wasiirka cadaaladda dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo sheegay in ciidamada asluubta Soomaaliyeed ay si fiican u dhaqmaan maxaabiista. waa ciidanka kaliya la noolaada maxbuuska booliisku soo qabta xeerartu way eedeysaa maxkamadda ruux xukuntaa biig bay ku dhabaantaa halkaas lagu keenayaa haddii la yiraahdo xabsdaan adaa kula jira marka haddii aan markaa saraakiishii saraakiil ciidankii aan la dhaqaaleyn iyo haddii aan iyana dhaqaaleyn maxaabiistii muxuu ahaa meesha la xidhay. ugu dambeyn kulankan waxaa soo xiray ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Maxamed Cumar Cartika oo kula dardaarmay talisyada maamul goboleedyada inay ku dhaqmaan wixii halkaan ay ka qaateen. waxyaalaha aad kala tegi kartaan markaad ku noqotaan waxaa la yidhaahdaa xabsiyadiina aad ku noqotaan waxyaalaha halkan laga qabtay ee la tegi karaysaan idinku naftiina aad samayn karaysaan bay noqonaysaa. marka isku xidhkaas hadda maanta bilaabmay wuxuu noqonayaa mid aan rabno inuu sidaa ku sii socdo haddii aan la idmo. Axmed Yuusuf Suleymaan, Somali Channel, magaalada Muqdisho.